naagtan waxay doonaysay oo keliya inay suuqa aado si ay u soo adeegato, laakiin markii ay albaabka furtay waxay la yaabtay markii ay aragtay inuu hor yaallo derbi weyn oo madow oo xiray. Lamaanahan markii ay arkeen arrintan way naxeen oo amakaageen. Ma ay garanayn wixii xalay dhacay iyo meesha uu ka yimid derbigan madow ee yaabka leh. Markii hore waxay u maleeyeen inuu yahay kaftan uu qof la sameeyey, laakiin markii ay isku dayeen inay daaqadaha ka baxaan waxay si naxdin leh u ogaadeen in dhammaan meelaha laga baxo uu xiray derbigan madow ee dahsoon. Intaas oo keliya ma ahayn, derbigan lebanka ah waxaa laga sameeyey walxo gaar ah oo aad u adag. Si kasta oo uu Nick u legday oo uu isugu dayay inuu dumiyo derbigan madow, wax dhaqaaq ah ma samayn. Markii ay aragtay xaaladan xaaskiisa Lisa waxay markiiba isku dayday inay booliiska wacdo si ay gargaar u hesho, laakiin waxaa yaab noqotay in labadooda taleefan aysan lahayn wax calaamad signal ah. Markii ay guriga oo dhan ka raadinayeen signal, Nick wuxuu dareemay arrin aan caadi ahayn. Wuxuu ogaaday in qalabka elektarooniga ah mar kasta oo loo dhoweeyo derbiga madow ay cilad galayaan sida iska cad. Derbigan madow ayaa ahaa sababta ka dambaysay in taleefanadoodu ay waayaan signalka. Lisa oo degdegsanayd ayaa waxay khaanad ka soo bixisay dalooliye drill koronto ku shaqeeya. Hadalkaba iska daaye waxay si toos ah u aaday derbigii madooba oo ay bilowday inay dalooliso, laakiin waxaa la yaab ku noqotay si kasta oo ay isugu dayday derbigan madow waxba ma gaarin. Xitaa markii uu birta dalooliyaha uu gaduutay kulayl dartiis, derbigan wuxuu ahaa sideedii oo aan wax dhib ah gaarin. Waxay isku dayeen inay derbiga caadiga ah ee u dhow dalooliyaan, laakiin natiijadu waxay noqotay mid niyad jab ku riday. Waxay ogaadeen in gurigooda oo dhan uu ku wareegsan yahay derbigan madow ee dahsoon. Labadoodiiba markiiba way naxeen oo yaabeen. Shaqadan baaxadda leh sidee hal habeen gudihiis loogu qabtay, laakiin isla markaas waxay dareemeen dhaqdhaqaaq ka imaanaya guriga deriskooda. Arrinkani wuxuu siiyey rajo, maadaama ay cod maqlayaan waxay la macno tahay in derbigaas aan lagu xirin lebankii madooba. Sidii la filayay, dalooliyihii wuxuu si degdeg ah u dalooliyey derbigii, waxayna u suurta gashay inay arkaan deriskoodii. Wadahadal kooban kadib waxay ogaadeen inay iyaguna ku xaniban yihiin gurigooda, qofna ma garanayo sida uu ku yimid derbigan madow. Waxaa ka sii darnayd markii wakhtigu sii socday, biyaha guriga ayaa go'ay. Tani waxay la macno tahay inay ugu dambayn u dhiman doonaan haraad. Nick oo xanaaqsan ayaa taleefankiisii ku tuuray derbigii madow. Wuxuu la yaabay markii qayb jaban oo taleefankii ka mid ah ay ku dhegtay derbiga. Miyay noqon kartaa in lebankan madow laga sameeyey birlab si uu u tijaabiyo mala awaalkiisa? Wuxuu soo ururiyey qalab bir ah oo aad u tiro badan, wuxuuna ku duldaadiyey derbiga madow oo dhan. Wuxuu ogaaday in derbiga meelo ka mid ah ay awoodda birlabtu ku kala duwan tahay. Waxaa laga yaabaa in furaha lagu furi karo derbigan madow uu ku qarsoon yahay 40 dhibcood ee awoodda birlabtu ku xoogan tahay. Laakiin intii ay arrintan ka fikirayeen, qalabkii birta ahaa ee derbiga ku dheganaa ayaa si lama filaan ah u gariiray. Waxyaalahan way soo laabanayaan, foorarso. Nick si degdeg ah ayuu u foorarsaday isagoo xaaskiisa ka badbaadinaya inay waxyeelo soo gaarto. Nasiib darro, dhabarkiisa waxaa ku dhacay birihii soo laabtay oo dhaawacay. Maadaama uusan haysan waddo kale, wuxuu ka codsaday xaaskiisa inay dhaawacyadiisa u xirto. Nasasho yar kadib waxay bilaabeen inay ballaariyaan daloolkii derbiga deriska. Waxay u maleeyeen in dad badan ay xal u heli karaan dhibaatadan, laakiin wakhtigaas deriskoodu waxay ahaayeen kuwa aan waxba qaban karin oo ka quustay derbigan dahsoon. Markii ay garowsadeen inaan la iska fadhin karin, Nick wuxuu guriga deriska ka raadiyey qalab. Ugu dambayn wuxuu helay dube weyn. Wuxuu markiiba ku dhuftay derbiga madow. Nasiib darro, gacmihiisii ayaa xanuunay. Derbigiina wax isbeddel ah ma samayn. Sida iska cad, adkaanta derbigan madow waxay ka sarraysay wixii ay malaynayeen. Xoog waxba laguma qaban karin. Wakhtigaas Lisa oo ahayd injineer dhisme ayaa si lama filaan ah wax u soo xusuusatay. Waxay ogaatay in dhismahan la dhisay sanadkii 1897. Dagaalkii labaad ee adduunka waxaa dhulka hoostiisa laga dhisay hoy looga gabado duqeymaha, kaasoo ku xirnaa nidaamka tareenada dhulka hoostiisa mara. Sidaa darteed, Lisa waxay hubtay haddii ay dhulka hoos u qodaan inay hubaal gaari karaan hoygaas oo ay ka bixi karaan. Markii ay ogaadeen in habkani shaqayn karo, Nick wuxuu qaatay dubihii weynaa wuxuuna bilaabay inuu si xooggan u dumiyo dhulka. Si degdeg ah, dhulkii wuxuu sameeyey dalool weyn. Kadib markii uu nus saac qayliyey si uu u hubiyo inaysan cidna joogin dabaqa hoose, Nick wuxuu isticmaalay go' sariireed si uu hoos ugu dego, laakiin markii uu sahaminayay agagaarka, waxaa si lama filaan ah u soo baxay oday buka oo qori sita. Odaygu wuxuu u maleeyey in Nick uu doonayo inuu xado raashinkiisa. Sidaa darteed, wuxuu ku amray inuu si degdeg ah u laabto. Xaaladan oo kale waxay u ekayd sidii dhammaadka adduunka, waxaana ugu muhiimsanaa raashinka. Inkasta oo Nick uu si joogto ah u sharaxayay xaaladda, odaygu ma dhegaysan. Nasiib wanaag, xilligaas waxaa timid gabadh uu odaygu awoowe u ahaa, waxayna si degdeg ah u dejisay. Wadahadal kadib, odaygii wuxuu oggolaaday inuu ku biiro qorshahooda baxsadka. Dhowr qofood ayaa si aan kala joogsi lahayn u bilaabay inay dhulka burburiyaan, laakiin xilligaas Nick wuxuu si lama filaan ah u arkay in qalabkii digniinta qiiqa ee dhulka yaalay uu muuqday mid aan caadi ahayn. Markii uu kala furay, wuxuu si lama filaan ah u ogaaday inuu ku dhex jiro kaamiro. Isagoo shaki qaba ayuu odaygii weydiiyey in isagu uu rakibay kaamiradan, laakiin odaygu wuxuu sheegay in mulkiilaha guriga uu rakibay. Si uu shaki tir u sameeyo, Nick wuxuu isla markiiba ka furay qalabkii digniinta qiiqa ee jikada ku yaalay. Sidii la filayay, waxaa ku dhex jirtay kaamiro. Dadkii goobta joogay waxay ogaadeen inay tani tahay ciyaar bahalnimo ah. Mulkiilaha guriga ayaa si ula kac ah u dhisay derbigan madow si uu dadkan halkan ugu xiro, halka mulkiilaha iyo saaxiibadiis ay daawanayaan iyagoo ku qoslaya. Markii ay ogaadeen in mulkiilaha guriga uu deriskooda yahay, dadkii waxay isla markiiba burburiyeen derbiga jikada. Waxay doonayeen inay mulkiilaha weydiiyaan sababta, laakiin markii ay galeen guriga mulkiilaha, waxay si naxdin leh u arkeen in mulkiilaha uu dhintay isagoo dhiig ku dhex jira. Waxaa la yaab noqotay in labadiisa gacmood la jaray. Geerida naxdinta leh waxay cabsi gelisay qof walba. Si ay uga baxsadaan meeshan, dadkii waxay si degdeg ah u burburinayeen dhulka guriga odayga. Nasiib darro, nin deriska ah ayaa xoog badan isticmaalay, taasoo keentay in dhulka oo dhan uu dumo. Dadkii oo dhan ayaa dhulka ku dhacay. Nasiib wanaag, dabaqu ma ahayn mid aad u dheer, waxayna dadkii oo dhan ka badbaadeen dhaawacyo fudud. Xilligaas waxaa soo baxay nin lagu magacaabo Anton. Wuxuu sheegay inuu ahaa saaxiibka ninkii guriga lahaa. Wuxuu yidhi, shalay ayaan soo booqday saaxiibkay, laakiin si lama filaan ah ayaan halkan ugu xanimay. Laakiin dadkii kale ma aysan haysan waqti ay ku dhageystaan sheekadiisa. Waqtigaas waxay kaliya doonayeen inay meeshan ka baxaan, laakiin Anton ayaa qoslay. Isagoo
aan dan ka lahayn ayuu yidhi in meesha laga baxo ay tahay geeri. Isla markiiba wuxuu u sheegay dadkii in derbigan madow ee casriga ah uu dhab ahaantii ahaa mid iyaga ilaalinayay. Sababtoo ah xalay ayuu TV-ga ka arkay war sheegaya in cudur dahsoon uu faafayo. Si loo damaanad qaado badqabka dadweynaha, mas'uuliyiintu waxay isticmaaleen derbigan madow si ay dadka oo dhan guryahooda ugu karantiilaan. Wuxuu sidoo kale sheegay in saaxiibkiis uu u dhintay cudurkaas. Inkastoo Anton uu si kalsooni leh u hadlayay, dadkii kale weli way ka shakisanayeen. Kadib oo dhan waa inaad aragtaa si aad u rumaysato. Sidaa darteed waxay mar kale burburiyeen dhulka. Sidii la rabay waxay yimaadeen qolka dhulka hoostiisa ah, waxayna si guul leh u heleen albaabka birta ah ee hoyga. Laakiin markii ay albaabka fureen, waxay arkeen muuqaal ku riday niyad jab. Waxaa soo baxday in albaabka uu hor yaallo derbi madow oo culus. Dadkii oo dhan way quusteen. Ninkii deriska ahaa si uu u muujiyo xanaaqiisa, wuxuu qaatay qorigii odayga. Wuxuu si istaba joog ah u riday dhowr xabadood derbiga madow. Laakiin waxaa dhacay muuqaal yaab leh. Xabadihii la riday waxay ku hakadeen hawada. Dhowr dhalinyaro ah ayaa si degdeg ah u falceliyey oo ka badbaaday musiibada. Laakiin odaygu nasiib uma yeelan. Waxaa ku dhacay xabadihii soo laabtay oo isla goobta ku dilay. Dhacdadan kadib, dadkii way fahmeen sida uu u cabsi badan yahay derbigan madow, waxayna bilaabeen inay ka fekeraan inay isdhiibaan. Laakiin ficilkoodan ma saamayn Nick. Wuxuu si adag u aaminsanaa in geerida mulkiilaha ay xiriir la leedahay derbigan madow. Si loo xaliyo sirta ka dambaysa derbiga madow, dadkii waxay go'aansadeen inay ku laabtaan guriga mulkiilaha si ay u raadiyaan tilmaamo. Inkasta oo aysan qolka ka helin wax faa'iido leh, Nick oo taxadar badnaa wuxuu dareemay in qolka fadhiga ee mulkiilaha uu ka yaraa kooda. Sidii la filayay, markii uu baaray, wuxuu ogaaday inuu jiro qol qarsoon. Intii uu raadinayay sida loo furo, nin deriska ah ayaa khaanad ka helay aalad kontarool. Wuxuu si aan kala sooc lahayn u riixay badhan. Isla markaas qolkii qarsoona ayaa buuq sameeyay. Sida muuqata, kani wuxuu ahaa kontaroolka furaha qolka qarsoon. Laakiin waa maxay furaha sirta ah? Xilligaas, Nick wuxuu si lama filaan ah wax u soo xusuustay. Wuxuu arkay isagoo burfudud si tartiib ah ugu afuufaya kontaroolka. Isla markiiba waxaa soo baxay 4 farood oo raad ah. 4 lambar waxay lahaayeen 2 afar isku dar oo kala duwan. Isku dayo badan kadib, ugu dambeyntii waxay ku guuleysteen inay furaan albaabka weyn ee qolka qarsoon. Waxaa soo baxday in qolka qarsoon uu yaalay dhowr kombiyuutar oo shaashadaha ay ka muuqdeen muuqaalo kamaradaha qarsoon. Mulkiilaha isagoo adeegsanaya kamaradahaas, wuxuu si cad u arki karayay wax kasta oo ka dhacaya guryaha dadka. Sida iska cad, mulkiiluhu wuxuu ahaa qof jecel inuu dadka kale basaaso. Laakiin hadda ma ahayn waqtigii arrimahan laga hadli lahaa. Waxa ugu muhiimsan waa in la fahmo sirta derbiga madow. Markii ay dib u eegeen muuqaaladii hore, waxay ogaadeen in derbiga uu soo muuqday 4tii subaxnimo. Markii muuqaalka la sii daawaday, Nick wuxuu dareemay in barnaamij sameeyaha dabaqa koowaad deganaa oo ahaa saaxiibkii Anton uu si guul leh u furay derbiga madow. Inkastoo kamaradu aysan duubin muuqaalka furitaanka derbiga, iftiin istaba joog ah oo soo baxay kadib albaabka hore waxaa laga arkayay iftiinka wadada. Laakiin intaysan farxin, waxaa muuqaalka kamarada ka soo muuqday muuqaal argagax leh. Anton ayaa si lama filaan ah dib ugu soo celiyey saaxiibkiisii. Ugu dambeyntiina wuu ceejiyey ilaa uu ka dhinto. Markii uu ogaaday in arrimuhu ay halis yihiin, Nick si degdeg ah ayuu dib ugu laabtay. Laakiin wax walba way daacsanaayeen. Gabadhii uu odaygu awoowaha u ahaa waa la dilay. Ninkii deriska ahaana Anton ayaa afduubtay. Nick markuu arkay xaaladda, isla markiiba wuu la dagaalamay. Laakiin jidhkiisa daciifka ahaa si degdeg ah ayuu u guuldaraystay. Isla markii uu Anton isku diyaarinayay inuu dilo, ninkii deriska ahaa ayaa si degdeg ah u soo farageliyey, taasoo u sahashay inay xakameeyaan Anton. Markii la weydiiyey, Anton wuxuu aakhirkii daaha ka qaaday runta. Waxaa soo baxday in isaga iyo saaxiibkiis ay ka shaqaynayeen shirkad farsamada casriga ah. Derbigan madow wuxuu ahaa wax soo saarkooda. Marka loo eego shaqaalaha shirkadda, waxay si fiican u ogaayeen in kaliya marka uu jiro cudur ama masiibo weyn ay shirkaddu kicin doonto derbigan si loo ilaaliyo badqabka dadka. Sidaa darteed, wuxuu u maleeyay inuu dibadda ka dilaacay cudur. Laakiin saaxiibkiis wuxuu aaminsanaa in nidaamku uu ciladoobay. Labadoodu way iskhilaafeen. Markii uu arkay in saaxiibkiis uu ku adkaysanayo inuu jebiyo derbiga oo uu baxsado si uusan isaga dhib ugu keenin, wuxuu go'aansaday inuu dilo. Markii ay taas maqleen, dadkii way xanaaqeen. Qofkii kaliya ee bixi karayay ayaa la dilay. Ninkii deriska ahaa oo xanaaqsan ayaa dhowr xabadood ku dhuftay Anton. Dhacdadan kadib, wuxuu awoodi waayay inuu aqbalo geerida xaaskiisa, wuxuuna aakhirkii isdilay. Taxanahan dhacdooyinka kadib, waxaa hadhay oo kaliya Nick iyo Lisa. Geerida naagtii deriska waxay sidoo kale u sheegtay in iftiinka taleefanka uusan ahayn mid fudud. Waxay u badan tahay inuu la mid yahay furaha sirta ee taleefanka oo u baahan in la geliyo isku xigxiga saxda ah si loo furo derbiga. Muuqaalka iftiinka ee uu saaxiibkii Anton sameeyey markii uu furayay derbiga ayaa kamaradu duubtay. Labadoodu iyagoo adeegsanaya tirada iftiinka, waxay si guul leh u heleen furaha sirta. Nasiib wanaag, dadaalkooda wuu miro dhalay. Markan labadoodu waxay aakhirkii fureen marinkii. Waxay mareen dadaal dheer, ugu dambeyntiina waxay yimaadeen dunidii dibadda. Laakiin muuqaalka hortooda yaalay ayaa ka dhigay inay naxaan. Waxaa soo baxday in dhammaan dhismayaasha ay ku daboolan yihiin derbigan dahsoon. Labadan qof oo jahawareersan ayaa fuulay gaari. Nasiib wanaag, idaacadda gaariga ayaa si lama filaan ah u shaqaysay. Waxay sheegtay in dhibaatada derbiga madow ay sababtay dab ka kacay shirkaddii Anton, kaasoo keenay in nidaamku ciladoobo. Sidaas darteed ayuu dhacay musiibadan. Dadka kale ee dibadda ku xayirnaa waxay isugu soo urureen goobaha nabdoon. Markay taas maqleen, Nick iyo Lisa waxay sidoo kale gaarigoodii u kaxeeyeen dhanka goobta nabdoon. Filimkiina halkaas ayuu ku dhammaaday.